cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigan ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin soomaalinimo waxaan dowlado ka diiday soomaalinimaan ku oggola waxaan cid kale ka diiday soomaalinimaan ku oggola war miis soomaaliyeed aan ku wada hadalno waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin taariikhduna way qori doontaa 2019kii dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013kii wixii dhacay 2013kii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland lama yidhaah Jubbaland la yidhaah oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaad oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekadiiyo garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dowladdooda taasaan ku soo dhaafnay intaan markaan ka tago waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degan tahay wada leedahay Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo waxaan rabaa inaan taariikhda ka soo bilaabo 2013kii markii ugu horeysay Jubbaland la dhisay mucaarado badan iyo dhib badan baa jiray oo dhacay dib u heshiisiintii ugu horeysay ee Jubbaland laga qabto waxaa yimid dadkii markaas mucaaradka ahaa ee dib u heshiisiinta ku yimid ee qaatay Jubbaland oo ay leeyihiin inay dhistaan waxaa ugu horeeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdiqaadir Luga Dheere waxaa ku jiray guddoomiyaha baarlamaanka labaad guddoomiye ku-xigeenka Cabdi Baaley iyo mas-uuliyiin badan oo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayd Aadan oo ku yimid isagoo 6 gobol dadkii ka shaqaynayay ahaa dib u heshiisiinta gartayna Jubbaland iyo waxay tahay iyo sida loo dhisay intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay shalay baan idiin sheegayay Jubbaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo 2013kii dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland lama yidhaah Jubbaland la yidhaah oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaad oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekadiiyo garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dowladdooda taasaan ku soo dhaafnay intii ka dambaysay waxay noqotay markaa inaan dhisno dowladnimada dagaalka shabaabka oo shalay ka hadlayey oo culayska ugu badan halkan uu yaallo oo madaxa masku uu yaallo ayaa waxay noqotay inaan dagaalkaad ogeydeen gallo iyadoo mar walba ay yaray taakulada dowladda federaalka aan ka helayno waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo marray iyo mucaaradadii ay abuureen iyadoo maanta ay joogaan dadkii xilligaas mucaaradada ahaa dad ka mida wasiirada iyo xildhibaano federaalka oo wasiir Seeraar oo wasiirka waxbarashada xildhibaan Xidig
ay ahaayeen dadkii 2019 mar walbana waxaa ayaan darraa dowladnimada Soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqaysa inay ka shaqayso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada Soomaaliya taas waan uga mahad celinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda taagan ayaa waxay yidhaahdeen godka lagu socdo kuma sii dhacayno waxaan rabaa inaan hal eray oo kale ku daro kaftaba ha ahaado Jubbaland waa Soomaaliya waa state ballaarada Soomaaliya ku yaala Soomaali baa degan Etoobiyana ma aha Kenyana ma aha 2019 dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Etoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaskii uu dhinac way ka sii jiro maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yiraahdo Axmed Madoobe Kenyaanka keeni Kenyaan baa sidan yeeli amnada Kenya am Soomaali baana waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno la Etoobiyana noqonin wala Kenyana noqonin wala cid kale aan noqonin Soomaali baan hay Soomaaliya iskale waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaaruna dawlado kale ha ku wareegi maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaamboon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaas mas'uul ka ah lama aqbalayo ciidanka ahayn oo amniga faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynuhu waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamsow waxaan waa taariikh bari bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland baa la dagaalamaya burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhaya lahaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhigteed galayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaadno laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigana ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin Soomaalinimo waxaan dawlado ka diiday Soomaalinimaan ku ogola waxaan cid kale ka diiday Soomaalinimaan ku ogola warmii Soomaaliyeed aan ku wada hadalno waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin taariikhduna way qori doontaa haddii cid la isticmaalayana shalayna waa la ogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayna nin amni aan ahay waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo aad iyo aad baan dadka reer Jubbaland iyo martida ugu mahad celinayaa waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan isku ognahay shabaab oo la dagaalano ciddii kale carqalad keentana gacan baan iskaga qabanayna salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu